runtii waxa sharaf weyn inoo ah farxad inoo ah maanta inaynu dah furno si rasmi ahna u bilaabmo imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare oo ay ka qayb galayaan dhammaan arday gaaraysa 31,000 iyo 500 oo Soomaali ah oo wax ku bartay dugsiyada sare fasalkoodii 12aad ama form 4 maanta u galaya imtixaan taasi waxay ku tusaysaa tirada inta leeginay imtixaan u fadhiistaan oo dugsiga sare ahi in maanta ay adkaanayso dawladnimadii nabadii si adkaanayso qoysaska Soomaaliyeed ku hamiyayaan inay caruurtooda waxbarashada u diraan wiilashooda iyo gabdhahooda lagu kalsoonaanayo dawladnimadii iyo nidaamkii lagu kalsoonaanayo waxbarashadii dalkeena ay si taaba gashay imtixaanka dugsiga sare ma hawl yara waa dadaal 12 sanadood ku dhawaad ay waalidka macallimiinta iyo ardaydu soo sameynayeen guushiisii iyo tijaabadiisii ayaa maanta ka bilaabantay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhammaan oo si rasmi ah waxana qaaday insha Allah toddobaadka soo socdana macallimiinta wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiinta iyo kormeerayaasha kale hay'adaha amniga gobolka Banaadir iyo maamulada kaleba ay ka wada shaqeynayaan waxaan ugu hambaleynayaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dadaalka weyn ee ay sameysay in maanta imtixaankii awal hore cid kale soo diyaarin jirtay ay wasaaradda mas'uuliyiinteedii kormeerayaashii wasaaradda aqoon-yahankii ay xulaan ee lagu kalsoon yahay ay diyaariyaan imtixaan xiran oo hadda aynu warqadii ugu horeysay furnay oo aan hore loo arag buuggii jawaabta iyo imtixaankiiba uu lingaxan yahay oo loo qeybiyay ardaydu iyagoo wada arkaya lagu hor furay dhammaan dugsiyada kalena sidaas waxay tusaysaa in ay dawladnimadii taaba gashay in qarankani dib lugihiisa isugu taagayo in nabadii horumar ay sameynayso intaasoo caruura 31,500 waalidiintoodii inay ku hirtaan dalkooda gudihiisa inay wax ku baraan oo waxbarashadii ay ku qaataan imtixaanadoodii dalkoodii ugu fadhiistaan dalkoodana aaminaan dadkooda aaminaan macallimiintooda iyo waalidiintooda aaminaan dawladooda aaminaan waa wax weyn guul baan dhammaan bisha barakeysan ee Ramadaan inoo rajeynaya ardayda imtixaanka u fadhiisatayna waxaynu dhammaantood u rajeynaynaa guul waxaan leeyahay hambalyo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare fasalka 12aad ama form 4 waxa uu inoogu furan yahay si rasmi ah